بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا جوا فؤاد عبد محمد لونا جرنوجي هاي فؤاد راشب كانت ترسم حبناها بلوينتا جبريل بكر UK وحمان تهلكنا نكو قبانينا باق بقادين يهم بليه بيسوتشرا كاسو كوجهن شروينها beesha Jibriil Bokor ee ka dhici doona dalka Germany waxaan u rajaynayaa shirkaas inuu noqdo mid tawfiiq leh mid talo wax ku oolay ka soo baxdo waxaan ugu baaqayaa xubnaha ka qayb galaya iyo inta kale hadalkan maqlaysa ee ama UK joogta ama Germany joogta in taageerada shirkaasi lagu dhawaaqo la isna garab taago lagana soo qayb galo intii iman karaysa waxa la horaa loo yiri marka tala la helo ayaa arin la helaa ummadu hadii aanay isku iman oo waxa ay doonayso iyadu asaasigeeda nolosha asaasiga ka shaqaynin cidna uma hagaajiso maama Soomaaliyeed baa hore u oran jirtay nimaan hadlin habartii qadis marka ummaduna tadawurka iyo development-ka ka mid tahay in dadku isriixaan laakiin marka ummadi tashato garato waxa ay doonayso iyo waxa ay diidayso ayuu arinkeedu hagaaga waxaan rajaynayaa inay shirka ka soo bixi doonaan talooyin wax ku ool ah oo anfici doona gobolkeennii dadkiisa deegaankeena oo hadii ummadu aanay waxa ay haysato ku adkaanin waxba uma hagaagaan waxyaabaha u baahan in laga hadlo waxa kamid ah sidii kor loogu qaadi lahaa waxbarashada gobolka caafimaadka iyo arrinka ugu weyn ee reer Gabiley ama beeshaas maanta meel walba ay joogaanba ay ku taamayaan oo ah mid ay xaq u leeyihiin in badan raagtay siday doontaba ku dhacdo laakiin gobolnimada Gabiley mid cid laga bariyo iyo mid loo doodaba may ahayn gobol isbixin kara dadkiisii leh deegaankiisii leh waxbarashadiisii leh horumarkiisii leh dalka wax ku soo kordhin kara way Gabiley marka in halka ay ka soo baxdo talo ku wajahan midaynta dadka u doodaya qadiyada Gabiley ayaan insha Allah biidmillaahi kariim u rajaynayaa waana salaamay oo mahadsantiin taageeraysa shaacintii waxa weeye ka dhacday wadanka Germany anigoo kamid ah xubnahaasi waxaan cadeynaynaa oo mar kasta garab taaganahay shirweynaha mideeye ee ka dhici doona wadanka Germany runtii shirkaas wuxuu noqon doonaa shirweyn waxyaabo fara badan oo danta waxa weeye Jibriil Bokor lagu faaqidi doono waxaananu ka rajaynaynaa in ay ka soo bixi doonaan go'aamo wax ku oola oo wax ka tari doona waxa weeyaan masiirka iyo mustaqbalka dambe ee Jibriil Bokor runtii xubnihii qabanqaabiyay abaabulay gogasha fidiyay waxaanu leenahay aad baad u mahadsantihiin waxaad samayseen wax loo baahnaa xilligeedii loo baahnaana waa aad ku dhawaaqdeen annaguna haddaanu nahay wakiilada reer UK jooga ee la soo wakiishay annagoo ku hadlayna Jibriil weyne afkiisii waxaad leenahay waa idin garab taaganahay waananu iman doonaa sidoo kale waxaanu ognahay in abaabul badan uu ka socdo wadanka UK dad fara badan xubno fara badan ay u diyaar garoobayaan inta diyaar garoobaysana waxa la ilaahay si nabad ha idinku geeyo runtii shirkaas wuxuu noqon doonaa shir weyn oo ay iskugu iman doonaan Jibriil weyne marka aan leeyahay Jibriil weyne waxa weeyaan qowmiyad dhan beel dhan oo degta meelo kala duwan sida Somaliland Ethiopia iyo waxa weeye wadamada kale Djibouti bay ka mid tahay xubnad waxa weeye waa reer ballaaran oo dega si gaar ah anigoo kale waxaan ka mid ahay kuwa dega Ethiopia anigoo afkoodii ku hadlayna waxaan leeyahay waa maanta maalintii aad sugayseen waqtiga badan aad rajaynayseen inaad ka hadashaan aad u baahnaydeen hadiiba ay jirto dhibaato hadiiba uu jiro wanaag maalintii loo baahnaa inaad soo bandhigtaan waa maanta waxaan rajaynayaa
inaydan ka baaqan doonin shirkaan aad ka soo qayb geli doontaan mar koobaad iyo mar labaadba guddida isa soo xilqaantay waqtiga badan soo gelisay waa uga mahad celinayaa. bismillaahi raxmaani raxiim. halka waxaan ka salaamayaa dhammaan mujtamaca Jibril Abukar beelweynta aadka u ballaaran ee maaragtay Ethiopia iyo Somaliland iyo Djibouti iyo qurbaha degan ayaan maaragtay aad uga salaamayaa. waxaan kaloo aad u hambalyaynayaa oo aadna u bogaadinayaa guddida isqaantay shirweynaha ka dhacaya Germany ee soo qabanqaabiyey ee maanta jeclaystay inay iskugu keenaan Jibril Abukar halkaasi oo ay talawada ka yeeshaan. horta aad iyo aad baan ugu hambalyaynayaa, aad iyo aadna waan ugu mahad celinayaa. waajib culus oo na wada saarnaa ayay guteen. ilaahayna ha idigu asro waan leenahay, annaguna waynu garab taagannahay, waan la shaqaynaynaa haddaanu nahay horta reer UK. laba masalo ayaan halkan doonaya inaan ka yara ifiyo oo ah beelweynta Jibril Abukar. horta Jibril Abukar in badan iskuguma yimaadaan maaragtay wax arrina, laakiin waa kii bilaabmay maasha allah ayaan leeyahay. laba mid baynu ka shaqaynaynaa oo ah inaynu midayno danteenna, hoos dan wadaag baynu nahay, meelo xasaasiyan waynu ku naalnaa runtii. marka waxaa lagama maarmaan ah in aynu midayno danteenna, maskaxdeenna, maalkeenna iyo dooritaanka iyo rabitaankeenna aanu leenahay. ayay horta u baahan intaasaan maaragtay horta idin diraya. kule waqti badan maaragtay meesha umaanaan inaan ka faalloonno waxa maanta qowmiyadda ama maaragtay beelweynta Jibril Abukar ay maanta u baahan tahay. waana mid maaragtay dib laga tashan doono. laakiin waxaan anigu haddaan ahay Shucayb Daahir Yuusuf aan aad iyo aad u hambalyaynayaa, uguna guubaabinayaa. war Jibril waa isku jeeni, waa in aynu ka duulno oo aynu danteenna midayno. hadduu degan yahay keliga shanaad iyo hadduu degan yahay Somaliland. anigoo magacaygu yahay Fuusiye Caydiid Aadan, waxaan halkan hambalyo iyo baaq iyo bogaadinba uga dirayaa shirka ka dhacaya Jarmalka 21 Juun maalinta Sabtida ah. waxaa kaloon hambalyo u dirayaa qabanqaabada guddida soo qabanqaabaysay shirka weyn ee beelweynta Jibril Abukar isugu imanayso. waa Yurub oo dhan shirku maasha allah, oo beelweynta Jibril Abukar oo ka tashanaysa aayahooga iyo mustaqbalkooga. shirku taasuu daaray aayahooga iyo mustaqbalkooga. beelweynta Jibril Abukar oo degta Somaliland, kilarka shanaad, Ethiopia iyo Djibouti. ujeedada iyo dulucda shirku waa intaa wada tashiga aayaha beelweynta Jibril Abukar. aadna waan ugu faraxsanahay inay maanta tolkay shiraan, danahooga gaarka ka tashadaan, dantooda raacdaan. insha Allah bismillaah kariina waxaan rajaynayaa inuu shirkaasi nagu soo gabagabo farxad iyo wanaag iyo khayr. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مقعيقو وهدن عبد علي. الحمد لله رب العالمين. ما أنت إلهي هدي ونقسمي إن أنقو قد ذا UK أنو تاغيرو إياهم بليا بحالك نقدرنو ريرك جبريل أبكر أنو داشي. وحويان شركة وين قرب جوجتا Jibril Abukar oo ka dhacaya 21 Juun ayaa waxaanu taageero buuxda iyo hambalyaba u diraynaa shirkaas iyo dadkii qabanqaabiyay. ugu horeyntii dadka dhalinyarada ah, wiilasha iyo hablaha ee isku dayay tacab badan geliyay inuu shirkaasi sidii yahay oo u dhaco. waan hambalyaynayaa. mar labaad waxaan hambalyaynayaa dadka ama maaragtay garcasta ku taageertay inuu shirkaasi sidii yahay u qabsoomo. qurba joogta Jibril Abukar waxaan ugu baaqayaa inay ka soo qayb galaan kana mid noqdaan shirka aayaka tashiga ah. Jibril Abukar oo deegaankiisu yahay Ethiopia, Somaliland iyo Djibouti. qurba joogta reer Somaliland, qurba joogta Jibril Abukar ee Somaliland degta, Ethiopia degta, Djibouti degta, waxaan ugu baaqayaa inaad ka soo qayb gashaan si mug iyo miisaan leh haddii Ilaahay yiraahdo.
آدي آدنا واردين سلام يا إلهينا شر لغو تناضو ووح ونكسنا كسو بحان الله كيلو السلام عليكم